Markaan rabay inaan xalkii waaqaca dhalinyarada Soomaaliyeed aan ku soo koobo hal oraah, waxaa hubaal ah in oraahdaasi ay noqonayso shaqo la'aan, kii dhameeyey jaamacadda iyo kii aan dhammayninba, kii ka yimid dalka dibaddiisa iyo kii dalkan dhinac u dhaafinba, kii dhakhtarka ahaa iyo kii injineerka ahaaba. Waxaa keliya ee kulmiya ayaa ah inay ka siman yihiin shaqo la'aan baahsan oo ka dhigta kuwo badan oo inaga mid ah kuwa ku fikira u hayaamida dalal ka baxsan dalkeena. Laakiin xilli ay dhallinyaradeennu weli ku fikiraysa quud ku raadinta shaqooyinka taqliidiga ahaa ee ahayd in marka aad jaamacad soo dhammaysid aad shaqo u doonatid xafiis, waxaa jira dhallinyar badan oo ku nool dhammaan daafaha adduunka oo dhan, kuwaasi oo hanti ka abuuray iyagoo xitaa aan jaamacad dhammaysan internetka. Muuqaalkeen maanta daawadayaal waxaynu ku wada gorfaynaynaa 4 shaqo oo aynu internetka lacag ugu abuuri karno innaga oo guryaheena joognaa. Magacaygu waa Diino Xuseen Shacab, halkani waa kanalka iftiinka. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Waxaan kuu sheegi doonaa 4 xirfad oo dakhligeedu sareeyo, taasi oo aad ku shaqaysan karto sanadka 2024 ee nagu soo aadan. 1. Affiliate marketing. 2. Video editing. 3. YouTube animation. 4. E-commerce. Affiliate marketing waa hab aad ku heliso commission adigoo xaysiis u sameynaya kambani badeeco iibiya, adigoo kula heshiinaya tusaale 15% faa'iidada inaad qaadan doonto macaamilkii aad keentaba. Haddaba aan kuu sharaxo affiliate marketing waxa uu yahay. Tusaale, waxaad codsatay kambani alaabaha ku iibiya Alibaba inaad suuqgeyn u samayso, kadib waxaad kula heshiisay inay ku siiyaan 20% faa'iidada. Markaasi waxay ku siin doonaan linki adig khaas ku ah, qofkii taabta website si toos ayuu u geen doonaa. Kadib waxaad video ka samaynaysaa alaabta adigoo sharaxaya waxtarkeeda, waxaadna soo dhigaysaa platformkaaga TikTok ama Instagram midkuu ahaadaba, adigoo muuqaalka dhammaadkiisana ku dhahaya haddii aad alaabtan u baahan tahay riix linkiga profile ka saaran. Kadib marka qofka alaabta gato waxaa kuu ururaysa lacagtaada, iyaga ayaana shibgareynaya haddaba qofka meesha uu joogo. Video editing waa adigoo muuqaal ceriin ah u beddelaya muuqaal qurxoon adigoo u yeelaya caption iyo color grading. Waxaad ugu shaqaysan kartaa tusaale, waxaad leedahay page TikTok ama Instagram, waxaa kula soo xiriira kambani doonaya in loo editin gareeyo muuqaal uu soo xayeysiisanayo alaabtiisa. Muuqaalkaas oo ay dadku ka heli karaan waxaadna kula heshiinaysaa tusaale $70. haddii aad maalintii 5 muuqaal editin gareysana waxaad haysataa $350. YouTube animation waa adigoo soo basdigareynaya muuqaalo gaaban ama dhaadheer dhankaas YouTube adigoo aan wejigaaga soo bandhigaynin sida muuqaaladayna oo kale, soona boostigareynaya muuqaalo xiise leh, taasi oo aad ku heli karto daawasho badan. ogsoonow, haddii YouTube-kaaga ay daawato 1 milyan iyo dad ka badan, waxay ku siin doonaan $12,000 ilaa $6,000. haddii aad samaysaa xaysiisna waxay ku siinayaan $10,000. E-commerce waa ganacsi hab online ah, kaasoo badeecadaada aad ku iibinayso hab online ah, adigoo alaab qiimo jaban ku soo gadanaya kadibna samaysanaya website ay dadku ku iibsan karaan badeecadaada. E-commerce waa ganacsiga haddeertan ugu faa'iidada badan dunida, tusaale Amazon, Shopify Store iyo Alibaba. Drop shopping waa nooc ka mid ah e-commerce. waxaad bakhaar ka dhex furanaysaa Shopify, kadib bakhaarka ayaad ku sharxaysaa alaabahaad is leedahay way faa'iido badan yihiin, kadibna waxaad xaysiis ku samaynaysaa page-kaaga TikTok. markuu qofka soo dalbado alaabta, lacagta ayuu ku soo dirayaa, markaasi ayaad alaabta soo gadaysaa, waxaadna ku soo gadaysaa tusaale, alaabta markay bakhaarkay joogto waa $100. waxaan tagay Shopify, waxaan alaabta ku soo gadanayaa iyadoo jumlad ahaan $70, waxaan haystaa $30 oo faa'iido ah. alaabtana supplier-ka ayaa deliver gareynaya oo inaga waxba inagama gelin. Entrepreneur ganacsaduhu waa shakhsi ganacsigiisa ku bilaaba fikrad uu haysto ama wax soo saar uu sameeyey, isagoo ku xisaabtamaya inta badan khataraha iyo faa'iidooyinka ganacsigu leeyahay, tusaale xaysiiye, suuqgeeye, milkiile ganacsi iyo sales. haddaba maxay tahay dhaqaalaha inaga soo xaroon kara ganacsiga?
asset waa hantida maalgashada uu ganacsiga ku bilaabay ama hanti ayuu gatay sida guri, goob ganacsi, dhisme, maalgashi. hantida aad gadatay ama aad maalgashatay lacagtaada ayay kordhinaysaa. tusaale, guri ayaa waxaan ku gatay $5,000, waxaan ku kireeyay $100,000. haddaba 5 bil kadib faa'iido nadiif ayaa ii soconaysaa. waxaan maalgashatay Hormuud, waxaan ku maalgashatay $50,000. haddaba bishii waxay siiyaan $5,000, sanadkiina waxay siiyaan $10,000. haddaba lacagteedii lacag ayay sii dhalaysaa. liability waa lidka asset. waxaan dhihi karaa waxa adiga lacag inaad ku bixiso kaaga baahan hantidaada hoos u dhigi karaa. tusaale, moobilkaaga, gaarigaaga iyo deymaha. moobilkaaga waxaad ku soo bixisay $150, bil kastana waxaad qad ahaan u isticmaashaa $15. haddii halaabana lacag ayaad ku samaynaysaa. gaariga waxaad ku soo gadatay $5,000, haddana maalin kasta wuxuu kaaga baahan yahay $3 oo shidaal ah, bishiina waa $90. expense waa kharashaadka ay ganacsiyadu ku bixiyaan, waxaana ka mid ah mushaarka, kirada, canshuurta.